السلام عليكم. بسم الله. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولا شيء وأتكون محسنت هذا وشذا فيديو بان كسر برنامجك تدقوشة وتدقوشة وبرنامج عصب وأعربه إن مشان كسر بندقو برنامج كان هنا كنتنا برنامج مسلسل oo noo socon doona hadafkiisu wuxuu yahay horumarinta nafsadeena kadibna saynu horumarino dalkeena iyo ummadeena. wadada guusha waa barnaamij u dhashay in muddo ah waan isku dayay inaan qaabab kala duwan ummadeeda ugu soo gudbiyo, ha noqoto qaab qoraal ah, qaab buug ah, qaab maqaal ah, iyo hadda oo aan rabo inaan kusoo gudbiyo qaab video ah. hadafkaygu wuxuu yahay oo anigaan aaminsanahay qofkii raba inuu wax bedelo waa lagama maarmaan marka hore inuu nafsadiisa bedelo. markaad nafsadaada bedeshid ayaa waxaa bedeli kartaa nafsad kale. mabda'aas anigoo aaminsan ayaa waxaan go-aansaday inaan meeshaan ka bilaabo barnaamijkan aynu ku baran doono hadduu alla idmo qaabab badan aynu ku gaarayno guusha. guushu dadku dhan way jecel yihiin, qof walba wuxuu rabaa inuu guusha gaaro, laakiin waxay leedahay qaabab, wadooyin loo maro. sidaas daraadeed wadooyinkii ayaan halkaan ku baranaynaa si aynu u gaarno guusha, kadibna u bedelno dalkeena iyo dadkeena. shaki kuma jiro, waan isku raacsanahay ayaan filayaa. dalka dadku u sugaayo waa anaga oo keliya, waa anaga. soo sax maaha, dadkii waddankaasi bedeli lahaa waa anaga. maadaama aynu nahay anaga, waxaa nala habboon inaynu fahanno marka hore nafsadeena, kadib aynu bedelno, aynu horumarno, kadibna bedelno dalkeena. haddaba barnaamijkan wadada guusha waa barnaamij kobcinta horumarinta nafsada. maanta anigoonan gelin muqadimad dheer iyo horumar, waxaan hore ka bilaabayaa xalaqada koowaad. xalaqadan koowaad waxay ku saabsan tahay mawduuc aad iyo aad agtiida qiimo ugu leh. mawduucan waa mawduuc runtii waxaan ku tilmaami karaa inuu yahay shayga ugu qaalisan ee qofku haysto. yani adiga waxaa laga yaaba waxyaaba badan inaad haysatid, laakiin aniga waxaan kuu sheegaya waxa ugu qaalisan aad haysatid waa shaygan. aan kuu sheegi doono wax yar kadib, laakiin marka hore ii ogolow inaan kuu sheego sheekada. wiil saaxiibka ayaa hadda ka hor ii sheekeynaa. wuxuu igu yiri, saaxiib, aabihii ayaa meeshaan boqosho u yimid Qaahiro. kadib markuu yimid oo uu maalmo joogay, aabihii wuxuu jecelaystay inuu la kulmo dhalinyarada qaar ka mid ah si u waraysto. dhalinyaradii ayaa loo yeeray, waa la wada qadiyey, waa la baashaalay. kadib markii waxa la dhamaystay
ayuu adeer wuxuu kusoo jeestay dhalinyaradii wuxuuna ku yidhi hal ii waro hal ii sheego waxaan rabaa inaa ogaado halkay waxay idin marayaan dhowr sana meeshaan joogtiin waa laidin soo dirsaday family ayaa idin sugaya ummadan ayaa idin sugaysa maxaa idin qabsoomay maxaana idin qabsoomin halkee waxay idin marayaan dhalinyaradii waa la isfiiriyay qofba wuxuu bilaabay inuu qofka kala fiiriyo axmed inuu cali fiiriyo cali inuu cabdi fiiriyo hoos iskala qabo adeer wuu shaki wuxuu malaynayaa in hore lagu jawaabayo qof kasta uu siinayo jawaab adeer aniga waxaan ahay sanadka saas jaamacadda adeer aniga waxaan ahay dugsiga hebel dugsar ayaan waxaan sanadkan dhameynay waxa ayuu rabay adeer soo maaha laakiin adeer ma laga aamuso waxay kadib mid ayaga kamid ayaa soo wuxuu yidhi adeer runta haddaan kuu sheego runta way fiican tahay sideeda runta haddaan kuu sheego dhalinyarada badankeeda waxay dhigtaan kulliyad lagu magacaabo kulliyatu noom adeer wuu yaabay yani weligiisa ma arkin jaamacad wuu maqli jiray kulliyad waa maqli jiray laakiin kulliyatu noom waa markii ugu horreysay oo maqlo ku fikri wuxuu ku yidhi adeer kulliyatu noom waa kulliyadii jaamacadeeda waa jaamacadda xaggee laga dhiga muhiimaddu waxay tahay kulliyadeen dhigana anaga kulliyadeen dhigana runtii kulliyadeen dhigana kulliyadee dhigata adiga kulliyadee dhigata kulliyatu noom kulliyadda wax soo saarka mise kulliyadda jiifka kuma maleynayo inaad dhiganaysid kulliyadda hurdada kuma maleynayo marba haddii aad daawanaysid waddada guusha ma dhiganaysid kulliyadda hurdada nasiib daro dhalinyaradeena inteena badan waktigeena waxaan ku luminaa meel aanan qiimo lahayn soo maha inteena badan waxaan dhiganaa kulliyado runtii aan wax soo saar lahayn ayna horumarinayn nafsadeena iskaba dhaaf dalkeena iyo dadkeena haddaba waa garatay ayaan filaya waxaan raba inaan ka hadlo mawduuceena maanta ugu horeeya wuxuu ku saabsan yahay shay dhammaanteenu wada haysano aniga adiga qof kasta wuxuu haystaa shaygan wuxuuna u haystaa isku qaab yani aniga adiga kaagama badni adigana qof kale kaagama badni isku mid qofka ugu hodansan dunida ee aad is leedahay hebel waa qofka ugu qanisan dunida iyo qofka aad is leedahay qofkaas waa qofka ugu waxba haysanin ee ugu maaragtay faqiirsan kulli shaygaas waxay u haystaan isku qaab ay u haystaan waa isku mid qofna qofka kale ma dheer haddaba hadday sidaas tahay say ku noqotay shaygaasi ay dadku isku mid u haystaan inay dadna ku gaaraan meel sare dadna aynan waxba horumar ku sameynin shaygaas haddaba garta soo maa mawduuceena maanta waa shayga uu ka yiri suubanaheena nicmataan maqbuun fiihi maca kathiiri min annaas asixa walfaraaq laba nimco dadku inta badan kama faa'idaystaan mawduuceena wuxuu ku saabsan yahay tan labaad alfaraaq haddaba waad garatay waxaan rabaa inaan ka hadlo waktigu waa nolosha arrinta aan kusoo koobo waktigu waa nolosha
waqtigu waa waxa ugu qaalisan ee aynu haysan. qof kasta oo haysto waxa ugu qaalisan waa waqtiga. waxaad leedahay ee mudan inaad meel dhigato ee aad ku samaysto istismaar investment waa waqtigaada. kaas ayaa ah shayga dadka kala saara, dadna gaarsiiya meel sare, dadna meel hoose. waa waqtiga. qofkii ka faa'iidaysta waqtigiisa ee ilaaliya si fiican u dhowra ee birqsi walba daqiiqad kasta ka faa'iidaysta, qofkaas ayaa gaara meel sare. guushana qofkaas ayaa gaara. haddaba dada ugu horeysa maanta guushu waa waqtiga. waa waqtiga. laakiin midda cajiibka leh ma garanaysaa waxay tahay. midda cajiibka leh waxay tahay shaygan waqtiga ahi dadkao dhan waxay u haystaan isku mid. aniga, adiga, Bill Gates, qofka kale ugu faqiirsan, kulligeen waxaan u haysanaa isku waqti ayaan haysanaa. waxaan haysanaa maalintii 24 saac, usbuucii 7 maalin, sanadkii 365 saacadood. كون يعني وعدل قفنا قف kale kuma dheera isku mid. marka aniga iyo adiga iyo qofka kale waxaan ku kala duwanaa oo kaliya saa u kala faa'iideysano waqtigaasi isku midka ah. haddii aan nidaam ku sameeyo waqtigayga oo aan habaysto oo aan dhowro oo aan maaragtay qaybsho oo aan waqtiga si fiican u ilaaliyo, markaas waxaan gaarayaa guusha. haddii aan iskaga socdo sidii aan shalay ahaa iyo sidii lasoo dhaafay nolosheedu ay tahay nolol iska soco, nolol iska soco ay tahay, aan ahayn nolol habaysan, aan ogeyn aniga waqtigayga meesha uu ku baxay, markaasna noloshu waxay noqonaysaa nolol aan horumar lahayn. nolol aan horumar lahayn. ila fiiri qur-aankeena kariimka alla subxaanahu watacaala waxaa arkaysaa qur-aanka markaa fiirisid waxaa arkaysaa alla subxaana watacaala inuu ku dhaaranayo waxyaabo badan. laakiin waxyaabo alle ku dhaarto waxay ku siinaysaa muhiimad aada iyo aada u sareysa. alle subxaana watacaala sidiisaba kuma dhaarto wax aanan qiimo lahayn. yani alle wuxuu ku dhaarto waxay ku cadeynaysaa shaygaasi qiimo leeyahay, shaygaasi inuu yahay shay aada muhiim u ah. ila fiir bismillaah bismillaahi rahmaani rahiim. والضحى والليل والشمس والفجر سمجدت والعصر. suuradahaas oo dhan bilowgooda waxaa ujeedaa inuu alle ku dhaaranayo maalmo, qorax, habeen, kulli waxay ku cadeynayaan zamanka, waqtiga. waxay ku siinayaan qiimaha uu leeyahay waqtiga, qiimaha uu leeyahay waqtiga ayay ku siinayaan. sidaas darteed waa inaynu fiirino. alle wuxuu ku leeyahay fiir shaygaan ku dhaaranayo, fiir waa shay aada iyo aada qiimo u leh, waa shay muhiim ah, ka taxadir, iska ilaali. saas ayuu ku leeyahay subxana watacaala. annagana maxaa nala haboon inaynu si fiican u ilaalino, ka faa'iidayso. haddaad fiirisid dadkii wanaagsanaa, taabiciintii iyo saxaabadii, waxay u ilaalin jireen waqtigan si aan caadi ahayn. marmar waxaas le adiga hataa yani waa xadkay dhaaftay say wax u sameynayaan, say u ilaalinayaan waqtigan. mid ayaa socda wadada taabiciinta kamid ah, kutubkiisa ayuu haysta. horta ma soconayaan ayagoo buugaag badan. yani waxyaabaha ugu muhiimsan ee waqtiga loo ilaalina waxay kamid tahay inaad waqtiyada gaariga aada sugaysid, waqtiga gaariga aada saaran tahay, xilliyadaas oo dhan inaad ka faa'iidaysatid. buug inaad wadatid, buug yar inaad haysatid oo aad gacanta ku haysatid, si aad waqtigaasi kaaga lumin meel cidla ah.
meel cidaas u shaqaalo يعني markaad gaariga sugaysid oo kale aad socotid waqti aad u badan waxa laga yaabaa gaari inuu soo daahay intaas meesha ma taagnaan intaas fiirin lahayd dhinacyada dhinac fiirin lahayd haddaad bugaystid bugaas xaasanaysa waxaad ma dareemaysid waqti markaa saaran tahay gaariga intaad dariishada kulba dhinac eega lahayd haddaad buga la soo baxdid waxaad ku baran kartaa intaasoo bug ay ku dhammayn kartaa waan usoo laaban doonaa qaybtaas siduu u socday nin ayaa ka hor yimid wuxuu ku yiri inaan kula hadlaan rabaa oo wax ku weydiiyo wuxuu ku yiri saaxiib ma xuma inaan wax weydiisid waa arrin wanaagsan laakiin ma ujeedaa qoraxdaan miiga qaban kartaa ma joojin kartaa intaa ila hadlaysid taa joojin kara qorax haddii aad qoraxda joojin karin aniga waqti ayaa igu socda waqti ayaa ii degsan jadwal ayaan ku socda waxbaan rabaa inaan faa'iidaysto soo ma jeedid sida agtooda qiimo ugu lahaa waqti saan uga faa'iidaysan karnaa marka waqti waxaan uga faa'iidaysan karnaa anagoo tandiim samayna jadwal inaan samaysano inaan kala qaybino umuuraheena inaan kala qaybino yani waxyaabaha aynu samaynayno inaynu kala qaybino inaynu u qaybino qayb muhiim degdeg ah muhiim aan degdeg ahayn yani waa muhiim degdegna ma aha waa muhiim waa degdeg muhiimna ma ahan degdegna ma aha okay tusaale aan ka bixino muhiim degdeg ah shaygu waa muhiim marka hore waana degdeg doctoorka wuxuu igu yiri jaamacadda wuxuu igu yiri berito waxaad keenaysiin baxsi ku saabsan mawduuca saasa muxaadarada soo socota ayaan kaa rabaa kaas waa muhiim waana degdeg yani waxay u qasaba markaan soo laabto inaan hawsha bilaabo waayo usbuucan gudihiisa ayaa laga rabaa inaan geeyo baxsigaas taas waa degdeg muhiim aan degdeg ahayn waa shay muhiim ah noloshaada oo dhan bedeli kara sida inaad buuq qortid sida inaad risaalo diyaarisid waa muhiim waayo haddii aad sheegaysa risaaladaas diyaarisid waxay bedelaysaa noloshaada oo dhan sax laakiin degdeg maaha waxaad samayn kartaa bil kadib sanad kadib 2 sano kadib yani waa muddo ayay qaadanaysaa kaas waa muhiim aan degdeg ahayn kaas ayaana ugu muhiimsan Stephen Covey buuggiisa 7 the 7 habits of the highly effective people wuxuu ku yiri qaybahaas ayuu ku sheegay 3 qaybood waana qaybta ugu muhiimsan waa qaybta muhiim aan degdeg ahayn waayo qaybtaasi waxay bedelaysaa noloshooda oo dhan waa wax muhiim ah laakiin waxaad dib ugu dhigaysaa adiga waxaad leedahay hadda degdeg maaha mid ay qaadanaysaa inaan jaamacad hadda galo waa muhiim laakiin degdeg miya dadka qaar waxaa laga yaabaa degdeg waayn inaan risaalo diyaariyo waa muhiim laakiin waxaan is leeyahay sanad kadib 2 sano kadib waa samayn kartaa soo maaha degdeg maaha qaybta kale waa qayb degdegna maaha muhiimna maaha inaan banooni daawado inaan film daawado muhiimna maaha degdegna maaha waan samayn karaa mana samayn karin marka haddii aan kuwaan saa u kala qaybiyo waxaa ogaanayaa aniga xaggeen ku dhuminayaa waqtigeyga yani waqtigeyga xaggeen ku bixinayaa inta badan ma waqtigeyga wuxuu qaadanayaa qaybtan muhiimka degdega ah muhiimka aan degdega ahayn mise degdegna aan ahayn muhiimna ahayn saddexdaas qaanadood xaggeen ku luminaya aniga waqtigeyga marka waqtiga dadka badan waxay ku lumiyaan qaybtaas nasiib daro qaybta u dambeysa degdegna ma aha muhiimna ma aha inaan filim daawado inaan iska ciyaaro inaan waxaas ayaa waqtigu marka haddaan saa u sameyno oo aan u jaangoono waqtigeena waxaa inoo soo baxaya meesha aynu waqtigeena aynu ku bixinayno aynu ku qaadanayno okay taas ayaa uga faa'iidaysan karnaa agta koowaad ta labaad markaan saa u samaysto waa inaan iltizaam la yimaada waa inaan raaca wixii aan sameeyay intana badan
waxbaan sameynaa xamaasad ayaan qaadaysaa marka hore waxbaan sameynaynaa kadibna waxaan arkaynaa maalmo kadib inaan sidaynu kusoo laabanay dad badan ayaa igu yiri wallah dad saaxiibada waxay u dhahan anaga waan sameynaa jadwaan samaystaa qayb mudaakaro ah qaybta waqtiga waan kala qaybshaa maalintii saacadaas waxaan aqrinaya buuggaas aan aqrinaya saacadaas waxaan aadaya jaamacadda saacadaasi waa hurdaya saacadaasi waa waqtiga xilliga cashada ama qadada saacadaasi waa habaysan maalintaas oo dhan waa habaystaa laakiin wuxuu yiri markaan samaysto kadib jadwalkaasi mushkiladu waxay tahay laba maalin haddaan saa kusoo socdo waxaan arkay haddaan anoo sideedii hore kusoo laabtay waa sax waa dhib waa ogahay midaas sababtoo qofka barnaamij weligiis intaas kusoo socday ma kula tahay in habeenii maalin aad ku bedeli kartid ma anfacaysa ma bedeli karo wax caado aad intaas oo dhan kusoo dhiganayd kuma bedeli kartid maalin iyo habeen laakiin waa inaad ku dulqaadataa waa inaad ku sabirtaa waxaana raacaysaa qaacidada 21 qaacidada waxay ku leedahay ma jiro wax aad samaysid 21 maalin oo isku xigta ilaa waxay noqonaysaa caado yani waxay ku noqonaysaa caado laakiin 21kaas maalin ayaa waxaa rabaa inaad iltizaam ku samaysid inaad isku dhigtid 21kaas maalin haddaad isku dhigtid hadhow waxay ku noqonaysaa caadi arrin caadi ah ayay ku noqonaysaa marka waa inaynu anaga iltizaamka waa muhiim jiddan waa arrinta ugu muhiimsan ee qofka ka dhigaysa inuu gaaro guusha iyo inuusan gaarin ila iltizaamka wuxuu kala saaraya inaad wixii aad samaysatay ku socotid iyo inaad gaartid marka waa inaad ku sabirtaa ku dulqaadataa midda kale marka hore waa inaadan sameynin inaad nafsadaadii wax weyn yani aniga awal hore matalan waxaan jiifan jiray tusaale ahaan waxaan jiifanayaa matalan 6 saac 12 habeen waxaan rabaa inaan waqtigeyga hadda aan ka dhigo waxaan rabaa inaan xilli hore seexdo say waxaa dhahdaa 11 habeenimo 11 ayaan rabaa inaan u bedelo yani saacad ayaan rabaa inaan dib usoo dhigo macquul maahan inaan xilli hore markaan rabo inaan seexdo inaan idhaahdo 9 ayaan seexanay yani aniga awal hore bay seexan jiray 1 ama 12 habeenimo inaan ka dhiga ma ahan 3 hal mar la tartiib waxaan seexan jiray 1 soo maahan hadda waxaan ka dhigayaa 12 caaw habeenka ku xigta 11 tartiib tadriij hal mar maan jug inaan wadaso taas waxay ka dhigaysaa inaadan kusii soconin hadafkaada ay ka dhigaysaa okay marka waa inaan ku socdaa qaab tadriiji ah sanad haddii kale waxaan noqonaya waxaan kusii laabanayaa murabbaci koowaad tahta 0 ayaan ka bilaabaya waayo kuma socona laakiin kowka ayaa awal caadadeedu waxay ahayd inaan seexdo 1 habeenimo ma rabo saas inaan waayo waqti waxay u tahay xilli dambe waxaan rabaa inaan helo maxaan sameynayaa inaan bedelayaan rabaa caadadaas soo maaha caaw waxaan seexanayaa 12 seexanaya okay jirkaygu la qabsanaya habeenku ku xiga mise 2 habeen 3 habeen waxaan kusii wadayaa 12 kadib hal saacadana 11 kadib ilaa aan ka gaaro meesha aan rabo 9 haddii aan rabo mise haddii aan rabo 10 binaas okay marka tartiib waa usbuuc kadib saas yani si arrintu u noqoto arrin la qabsata ilan jismigaaga kulligaaga waxaa u baratay qaab u socaya qaab dhan ayaa kusoo socotay maaha inaa hal mar wada bedeshid haddii kale waxay ku noqonaysaa arrin isla markiiba kusoo laabatay sidaadii hore qaabka kale aynu uga faa'iidaysan karno waqtiga waxay tahay hadda aan soo tilmaamay waqtiyada faraaqada waqtiyadaas waa waqtiyada ugu aan dhaliilsano laakiin waqtiyada ugu muhiimsan waxaana ka mid ah tusaale ahaan waqtiga gaariga aad sugaysid maxadada xilligaa taagan tahay waa xilliga ugu fursada badan waxaa laga yaabaa saacad inaad meesha taagnaatid nus saac inaad meesha taagnaatid nus saac waxaad ku luminaysaa meel cidla ah may waa inaad uga faa'iidaysataa buug inaad haysataa wax inaad muhiim ah inaad gacantaad ku haysataa saad yani buug inaad akhrisid inaad wax aad rabtid lagaa rabay inaad wadatid oo aad markaasi aad si samaysid yani waa inaad ka faa'iidaysataa okay inaad ka faa'iidaysataa markaa saaran tahay gaariga tubis markaa waxaa arkaysaa dad badan oo gaariga saaran inay iska fadhiyaan oo keliya mid wuxuu daawanayaa dariishada wuxuu isku daawanayaa meelaha mid iska maqan yahay
haysto waqtigeyga aan ka faa'iidaysanaya waxaan sameeyaa buug la soo baxaya waxaa laga yaabaa inaan buug meesha ku dhameeyo ilaa laga gaarayo meeshii aan rabay inaan buug saas ku dhameeyo wadada waa muhiim taabuurada oo kale hijra-ada markaa sameynaysid waa aragteen xaalka markaad hor rabtid inaad aadidba waxaad ku qasbantahay inaad taabuur gasho taabuurka oo kale waa muhiim aan la soo baxaya waxaa waxigaa akhrisanaya ka faa'iidaysta adiga muhiim waa inaad wadataa buug jeebkaaga ku jira okay saa uga faa'iidaystid daqiiqad kasta saa uga faa'iidaystid midda kale oo muhiimka waxay tahay oo aanan dadku inta badan la siinin ihtimaam kulleyba dadka reer Qaahiro anaga waa dadka oo single-ka ah khaasatan ama gabdhahaba kushiinka waa muhiim kushiinka waxaa laga yaabaa kushiinka maxaa ka inaas leedahay runta makuu sheega wallahi aniga kushiinka waxaa ku dhamay intaasoo buwaaga ma rumaysanaysaa intaasoo buwaaga say ku noqotay inaan ku dhamay intaasoo muxaadaro ayaan ku dhageystay intaasoo kutubta alxamdulilah hadda waxaa jira kutubadii oo dhan kutubta diiniga khaasatan Soomaali ahaan kutubta diiniga waxaa mashaayikhdu waxay ka dhigeen ajirooyin way sharxaa soo maaha hadda technology waa horumartay mobile haystaa fiican oo memory ku jiro muxaadarada ku shubo sheekha rabtid ku shubo kutubka rabtid ku shubo inta aniga wax diyaarinaya wax karinaya dhigta igu jirta aan dhegeysan halkaan dhegeysan lahaa wax kale oo aan waxba ii kordhinaynin waxaan dhegeysanaya muxaadarad halkaan saac ama saacadan ee barka aan kushiinka ku jiro waxaaba ka faa'iidaystay intaasoo macluumaad soo ma jeed kushiinka waa muhiim waa madarasad socota kushiinka ama kitchenka ama kushiinka ama jikada waa muhiim waayo waxay ku dareyseen waxaa haystaa fursad badan halkii aad ku lumi lahayd waqti badan kaaga lumi lahaa khaasatan gabdhaha waxaan leeyahay waqtigaasi aad buu muhiim u yahay ka faa'iidayso mobilka aad haystid waa nimco ilaahay ku siiyo oo aad ku samaysan kartid wax walba oo wanaagsan marka ku shibo macluumaadka muhiimka ah kuna dhegeyso intaad wax sameynaysid waxaad ka faa'iidaysaa waxaa haddaad rabtid inaad luuqad barateed English ha noqoto Faransiis ha luuqad walba ay noqoto aad baranaysidna ku shibo kadibna ku dhegeyso intaad ku jirtid kushiinka waa fikrad muhiim ah qaabkaas iyo qaab kale oo badan ayaan uga faa'iidaysan karnaa waqtigeena waayo su-aasha kale meesha jirto waxay tahay maxaa u luminaa anaga waqtigeena يعني maxaa u siin weynay dad kale u siiyaan waqtiga qiimo u siiyaan anaga maxaa u siin weynay su'aashaas waxaan u jawaabi karaa waa saddex sabab ayaa u ah inaynu waqtiga aanan siinin qiimaha u muto tan koowaad waa tarbiyada waxaana la hadlayaa runtii waalidiinta ilmaha barbaaranaa waxay hayaan mas-uuliyad aada iyo aada u sareysa mas-uuliyad aada iyo aada u qiimo badan sidaa daraaddeed waalidiinteena ayagoona xumaan ka ahayn oo aynan ka ahayn ilmahooda aysan barin waqtiga qiimihiisa oo ayagaba saas sidii waxay nagu tarbiyaan oo kale sida ayaga loo soo tarbiyay loo soo baray sidaas daraaddeed cunuga wuxuu ku daydaa waalidkiisa hadduu arko hooyo aabbo oo waqtiga ilaalinaya oo aan ogolanaya inay waqtigooda ku lumiyaan meel cidla ah waqtigooda ka fikiraya daqiiqad walba ilbarqsi walba oo ilaalinaya isagana wuxuu kusoo barbaaraya sidaas barbaarista cunuga waxay ku xiran tahay wuxuu ku arko waalidiintiisa hadduu arko waalidkiisa oo ah dad waqtigooda wax akhrisanaya faraaqada ah waqtigan shaqaynaynin ka fikiraya waqti kasta ee barsi kasta jadwal u dhegsan oo waqtigooda nidaamsan yahay oo ku socda qaab waqtiyeysan waxay kula tahay cunugaas wuxuu kusoo baxayaa sida waalidkiisa oo kale hadduu arko bilcaks waalidiintii oo aanan waqtiga wax ihtimaama siinin aan daryeelin hataa kaba hadlin waqtiga asagana wuxuu kusoo baxayaa sida waalidkiisa oo kale tan labaad ama saameynta labaad ee ku noqonaysa qofka saameynaysa inuusan waqtigiisa daryeelin khaasatan annaga Soomaali ahaan ama qof kastaba ummad kastaba waxay tahay tan labaad madrasada iskuulka ilmaha yar iskuulka marka la geeyo iskuulkaasi ma yahay bi'ad munaasib u ah ee ilaalisa waqtiga ee barta ilmahan qiimaha waqtiga mise ma aha
haddaba iskuulku waa muhiim sida guriga muhiim u yahay iskuulkuna muhiim u yahay marka haddii aynaan ilmaheena iskuulkeenu kusoo barin qiimaha waqtiga ahamiyadiisa wuxuu kusoo baxayaa asoon ogeyn qiimaha waqtiga uu leeyahay tan saddexaad waa iclaamka telefishinka maxay u gudbinayaan shabaabka telefishan lagu daawado guryaha maxay guryahana soo gelinayaan ma wax noo faa'iideeyaa mise wax na burburiya wax guriga dumiyaa mise wax guriga dhisa waa taas waa telefishinka ima inuu kusoo gudbiyo wax guriga badbaadiya ma in wax guriga dumiya haddaba ma yahay telefishinadena ma yihiin kuwa ka hadla qiimaha waqtiga ummadda u sheegaya qiimaha waqtigu leeyahay mujtamaca kala hadlaya qiimaha waqtigu leeyahay ku tarbiyeynaya qiimaha waqtiga mise ma aha saddexdaas shay ayaa ka dhigaya qofka inuusan siinin ihtimaam waqtigiisa saas darteed waxaa arkaysaa ummadaha horumaray sida Japan iyo Maraykanka iyo waxaa arkaysaa cunuga yar markaa weydiisid aad ku dhahdid maxaa rabtaa inaad noqotid mustaqbalka wuxuu ku leeyahay saas ayaan rabaa inaan noqdo waxaan rabaa inaan doctor noqdo waxaan rabaa inaan pilot noqdo inaan duuliye noqdo laga yaabo qof weyn inaad weydiisid oo kuwa yidhaahda ma walahi waxaan noqonay waxay ku xiran tahay tarbiyada see lagu soo tarbiyo ma waxaa lagu soo tarbiyey inaad hadaf lahaatid inaad waqtigaa ilaalisid waxaa lagu soo tarbiyey sidaas mise weligaagaba laguma sheegin bani aadamow waxaa tahay adiga laba maalmo la aruuriyo oo keliya maalin haddii ay baxdo adigana waxaa kaa tegaya barkaada ugu dambaystii waxaan kusoo gabagabeynayaa baxsi غريب runtii oo uu sameeyey Michael Fortino baxsigan waa baxsi aan la yaabo wuxuu ku leeyahay markuu baxsigan wuxuu arkay in qofka caadiga ahi uu ku bixiyo waqtigiisa 7 sano musqusha qofka caadiga noloshiisa haddaan kasoo qaado matalan qofkaas caadiga inuu ilaa 80 sano noolaa 7 sano wuxuu ku bixiyay musqusha 6 sano wuxuu ku bixiyaa cuntada inuu wax cuno markuu wax cunayo oo miiska dushiisa ayuu ku dhuminayaa 6 sano 6 sano 6 bilood wuxuu ku dhuminayaa inuu sugo gaarida inuu sugo maxadooyinka inuu isticmaalo 6 bilood 120 saacadood inuu halkaas iska nadiifiyo cadaysiga 120 saacadood haddaba waxaan ka faa'iiday meeshaas 4 daqiiqana inuu kula hadlo xaaskiisa daqiiqad iyo barna uu la sheekaysto carruurtiisa cajiib soo يعني قف 80 سنة gaaro wuxuu la hadlay cunugiisa ilmihiisa wuxuu la hadlay 80kaas sano 240 saacadood oo ah 10 maalin cajiib maxay ku tusinayaan midaas waxay ku tusinaysaa dadka kule anaga waqti ma haysano la dadka dhan waqti haystaan waqtiga muhiim mushkiladu ma ahan waqti inuusan jirin mushkiladu waxay tahay tanziim la'aan waqtiga kuma habeysana yani waxaad dhihi kartaa adiga waqtiga ma habeysana laakiin hadii waqti ma hayst dadka dhan waqti haystaan saan soo sheegnay isku waqti haysana laakiin waqtigaaga ma habeysna waqtigaaga wuxuu baahan yahay habaysid ma ahan ha sugin weligaa inaad heshid waqti dheeri ah ma helaysid waqti dheeri ma helaysid waqtiga waa waqtigaaga laakiin waxaad samayn kartaa oo keliya waa habeyn kartaa waa nidaamin kartaa marka qof kasta waa ka wajida yani qof kasta meel walba ku bixinaya waqti marka haddii aanu nidaamino waxaan helaynaa waqti aynu ku bixino meel sax ah waxaan dareemaynaa irtiyaah waqtigeena markaynu habeyno maalinteenu waan ka adkaanaynaa waxaan ognahay meeshaan rabno inaan aadno waxaan samaynayno irtiyaah nafsi ayaan dareemaynaa marka waxaas oo dhan waxaa ku siinaya tanziimka waqtiga haddii aad maalin lumisid
maxaad lumisay noloshaada. weligaa ha ogolaan waqtigaada inuu meel cidlaa kaaga lumo. ha ogolaan ilbiriqsi inuu ku dhaafo. ha ogolaan daqiiqad inay meel cidlaa kaaga lumto. waqtigaada habee si aan u badbaadin ummadeena, dalkeenana ugu horseeno guul iyo horumar. Brian Tracy wuxuu yidhi, haddii aad saacad lumisid, maalin ayaa lumisay. haddii aad maalin lumisid, nafsadaada ayaa lumisay. waa mahadsantihiin. tan iyo kulankeena dambe waxaa idinkaga tegayaa wada socod aan soo noqon lahayn. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.